oo xujooyin cadcad iyo inay qaldayin in loo sheego oo la taalacsiiyo xaqa iyo dariiqa toosana uu leeyahay. hadday midi markaa diiddo oo ku sii dhaga adeegto ismoodsiinteedaasi iyadoo ay xaqa moodaysa aan si xaqa ahayn, waa laga hor imanayaa, waa lala dagaalamayaa, oo kooxaha kale intay israacaan waa in la dhiciyaa. hadday se aqbalaan oo ismoodsiintooda ay ka soo laabtaan, waxaa lagu dhexdhexaadinayaa cadaalad baa ilaahay leeyay, faasilixuu baynahumaa bilqisط. ilaahay wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala, faasilixuu baynahumaa bilcadli waaqsiطuu in allaha yuxibu اlmuqsiطiin. idan ayankan waxa la ysku hayaa wuxuu doona ha noqdo, diin ha noqdo, dhaqaale ha noqdo, siyaasad ha noqdo, dhul ha noqdo, cidda is haysaa laba qof ha noqoto, laba dowladood ha noqoto, laba qabiil ha noqoto, laba koox diimeed ha noqdaan, cidda is haysaa afraad ha ahaato, waxay doontaba ha noqotee bulshada muslimiinta wixii dhex mara ee muran ah, waxaa dariiqa koowaad ee lagu dhexdhexaadiyaa waa in islaax laga dhex raadiyo. ilaahina subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahy: laa khayra fii kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaءa mardaati اllah fasawfa nu'tiihi ajra cadiima. ilaahay wuxuu leeyahay dadku waxa shirar iyo faq la gelayo khayr kuma jira baa ilaahay yidhi. shirarkaa iyo faqaqaa badan, faq sadaqa iyo la ysku farayo wanaag dad baahan la kaalmaynayo inuu noqdo mooyaane, ama mid samo iyo wanaag lagaga talinayo inuu yahay mooyaane, amase mid dadka lagu heshiisiinayo islaaxun bayna annaasa. yacni ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala, shirka bini aadamku uu shirshiro ama se uu faqfaqo khayr ma leh haddaanu saddexdan mid wadin: inuu sadaqo wado iyo kaalmayn dad la kaalmaynayo, inuu wanaag iyo macruuf kale ka talinayo wax khayr dadka ugu jiro, iyo inuu ka talinayo islaax bayna annaas, dadka in la heshiisiiyo inuu ka talinayo. ciddii sidaa samaysee faqeedu noocaa yahay ee baabkaa ku socota, ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala, fasawfa nu'tiihi ajran cadiima. ajar weyn baan siin doonaa baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala. rabu الsamaawaati wاlard ayaa ajar ballan qaaday, oo aan ajar oo keliya ballan qaadinee ballan qaaday inuu ajarkaasi noqon doono mid weyn baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala baan siinaya. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa xataa qofka iyo reerkiisa ninka sii dhimanaya hadduu dardaaranka xumeeyo oo uu dardaarmo ama kuwan dhaxalka leh, qaar buu is leeyahay dhaxalka weydaariyo ku yare, dabeetana xoolo badan buu rabaa inuu dardaarmo, ama qaar buu kala burburinayaa. dardaaranku hadduu qaldan yahay, ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy: faman khaafa min muusin janafan aw ihma. ninka uga baqa haddaad aragto dardaaranka qaabka loo wada inaanu saxnayn, mid dardaarmaya janafan khata aw ihman ama dembi, ama qofkani waa khata oo sharcigaba garan maaye wuxuu iska dardaarmaya waxaan shareecadu u ogolayn, waayo dardaaranku limit xad buu leeyahay shareecada. sharcigu waxaanu bau dardaarmaya oo gaf buu ku dardaarmaya, ama maahe wuu u kasaybo qoluu rabaa inuu xoolaa weydaariyo. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala, faaslaxa baynahum, oo dabeetana sulxi ku dhex gala. ninkan dardaarmaya yidhaha war dardaarankan qaldanu kaadi, ama maaha culammada qaar siday tilmaamayaan kuwii loo dardaarmiyo kuwii dhaxalka lahaa sulxi ku dhexdhexaadiya. falaa idma calayhi in allaha gafuuru raxiim. aayaddan aayaadka ka horeeya waxay tilmaamayaan dardaaranka in wax laga bedelaa inay mamnuuctay, laakiin markan in wax laga bedeli kara bay tilmaamaysaa. marka hore qofka dardaarmaya dardaarankiisa inaad wax ka beddesha hadday shareecada waafaqsantay ma bannaana, waa mamnuuc baa aayaadka hore ilaahay ku soo tilmaamay. kadib baa ilaahay wuxuu tilmaamaya haddii meesha gaf iyo wax isweydweydaarani jirto, in dardaaranka aad dhex gasho sidii wax looga bedeli lahaa oo loo islaaxin lahaa. waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya qofku hadduu dhaarto, war nimankaa waan ka cadhooday oo dhex geli maayo odagii caaqilkiinni ku dhaartay ama suldaankaa ka dhaartay, waxba dhaartaa kama jiraan.